muqdisho waxay soo martay marxalado kala duwan kuwaasoo sameeyay hoos u dhac ballaaran dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga sababna u ahaa dagaaladii sokeeyay 1991kii ka qarxay geyga Soomaaliya. Horaa waxaa loo yiri dib walba waxaa ka dambeeya dheef iyo nabad. dalka waxa uu sanadihii dambe cagta saarayay sida laga dareemayo magaalada quruxda badan ee dhanka ganacsiga. dadweynaha ayaa inta badan waxay ka dhibteen aragtidooda si ay u soo kabsatay horumarka ganacsi iyo goobaha ganacsi. aad baad u mahadsantihiin wadanka sidaan ognahay hadii aan nahay dhalinyarada dalka marxalado aad u kala duwan ayuu soo maray marxaladahaasi step by step ayaa la soo maray maantana alxamdulillah waxaa la taagan yahay door aad u wanaagsan dowladnimada dhalinyarada ay ka qayb qaadan karto sida ognahay dowladda ka dambayso waxaa ka qayb qaadanaya dhalinyaro ayaa soo gelaysa dhalinyarada soo horseedayso inay wadanka maanta ay meel fiican ay gaarsiiyaan ganacsiyada ay ku soo kordhiyaan aad ay u mahadsantahay wallahi waxaa moodaa in boqolkiiba 80 ee dhalinyarada ka shaqeysay wadanka in hadda uu hor u kaco because xoogooda isugu geliyeen ayagoo waxaysanin ayagoo cid caawinaynin ayagoo burbur wax ku soo bartay ee haddana u istaageen una fureen inay wadanka wax ka bedelaan hadday ku sii socdaan wadanka wax badan oo iska bedelaya insha Allah. dal oo wuxuu ahaa burbur soo maray hadda markii loo barbar dhigo 10kii sanad la soo dhaafay runtii wuxuu sameeyay isbedel aad u weyn dhanka horumarka amniga ganacsiga marka tanna ilaaha ma ku sugnaatay waxaa rajaynayaa sidan si ka sii qorshada gobolladan ka imaaday 2014 aan imaaday markaas aad u burbursanaa 4 bilood camalan joogay waan ka laabtay haddaan ku soo laabtay waxaan joogaa 8 bilood ما شاء الله إسبدل وين أتربيان إلا يو دبك إلا تلاح ما شاء الله إسبدل إلا بكارها إسبدل كذا وموقضة إسبن في عن يو هرمر في عنا كسعودة ودنبان waxay ganacsatada ugu baaqeen in ay wadankooda dhistaan dibadaha ka soo laabtaan si ay uga qayb qaataan dhismaha wadankooda sida ognahay dal walba waxa dhisa dhalinyaradiisa waxana burburiyo dhalinyaradiisa maanta dalka Soomaaliya boqolkiiba 75 waxa lagu qiyaasaa dhalinyaro inay yihiin dhalinyaradaasi waxay u wada istaagi karaan waxa tahay inay dib u dhis ay dalka ku sameeyaan ay ka qayb qaataan midda kale waxay u baahan yihiin waxa tahay garab inay macnaha dhiirgelin ay helaan ay ka helaan dadka ka daaweyn oo macnaha khibrada u leh inay ka helaan laakiin hadii dhalinyaradii la liido waxyaabo badan lagu sameeyo ma helayaan lagamana heli doon macnaha dib u dhis inay dalka u sameeyaan dib u dhac ay dalka u keeni karaan dhalinyarana waa hal doorka wadanka ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha ee ka sameynaya ganacsi iyo dhismooyin waaweyn maxaa ugu baaqi leh aad baa u mahadsantahay su'aal aad u muhiim ah waxaa jirta dhalinyaro iyo dadweyne kala Soomaali ah maanta wadamada caalamka dib u dhis aad u ballaaran ka sameeya laakiin waxaan leenahay waxa dib u dhis ugu baahan dalka waaye dhalinyarada maanta dhalinyaro badan ayaa dib u soo laabtay oo dalkay dib u dhis ku sameeyay inta kale dhiman waxaan leenahay inay soo noqdaan dalkooda dib u dhis ay ku sameeyaan dalka waa dalkeena wadanka iskala cidnaga xigma lahan ku soo dhawaada dalka ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan qurbaha ee ka sameynaysa ganacsi iyo dhismooyin waaweyn maxaa ugu baaqi leh wallahi anaga waxa ugu baaqayna ganacsatada oo Soomaaliyeed ee diaspora ah inay wadanka dib ugu soo laabtaan maalgashtaan wadanka dhalinyarada shaqo abuuris u sameeyaan fikirkii wadanka soo kordhinayaan oo noqdo fikir wax u tar leh yuu noqonin mid oo koob oo hor wadanka ugu jiray ha keenaan fikradaha wadankaas ka jiraya meel walbo aado dalkaada wax kaga qurxoon ma lahan asaa kaaga baahan inaad dhisatid waxaan ugu baaqayaa dadka dalkoodii ka cararay dal kale aaday oo nolol iyo horumar u aaday meeshaasi ay ka wadaan ganacsi iyo horumar waxaan ugu baaqayaa inay dalkooda ku soo laabtaan dalkooda uga baahan in la dhiso in la horumariyo dhinac waliba marka midna way wanaagsan tahay haddii meeshaas ay u aadeen ganacsi yani markii hore xogo yar hadday soo helaan oo dalkooda dib ugu soo laabtaan iyagu dalkooda ay maalgeliyaan oo dib u dhistaan waa arrin wanaagsan waay laakiin haddii meeshaas la aadagtid oo nolol qurxoon aad ku samaystid ganacsi aad ka abuuratid meesha waxaa waaye dal adiga aadan lahayn dareen ku joog waaye marka beriyaa laga yaabo in meesha lagaa soo ceeriyo
kadib dalkaada dib u soo laabane markii horena dalkaada adiga waa ka qaxday sidiisii waa isbedel nama samayn laakiin haddii meeshaas aad ka soo laabatid dalkaada dib aa u dhisatid cid kaa celinaysa ma lahan muwaadinaad tahay xuquuqaa ku leedahay marka waxaa ugu baaqaya in dalkooda ku soo laabtaan ay ka shaqeeyaan horumarka dalka waxaan ugu baaqi lahaa waddanka barwaaqa taalo oo wax kasto waxay waa aaday u fiican yihiin waddankaas ileen qudaarkiisii wixiisii oo dhan raashinkiisii waa la baxramiyaa anaga waxaa waaye qudaarteenni si dabiici ay u baxdaa beeraheedu way fiican yihiin wax walba u fiican yihiin inay ku soo laabtaan oo xoolahoodii iyo beerahoodii iyo waxooda ay tabacdaan aan ugu baaqi lahaa maadaama hadda dawladdii hadda ay ku bateen dhallinyarada aaday u fiican tahay inay wixii hadda qurbaha u sii socdo inay ku soo laabtaan ay iska dhaafaan kii oo dawladda qayb ka qaato iyo kii dantiisa u shaqaystaaba ay aaday u wanaagsan yihiin inay sii shaqaystaan oo qurbaha ay iska joojiyaan Yunus Ismaan M24 TV Muqdisho ayaa nafta la soo darwaaday dalkaygu